السلام عليكم magacayga waa Sahra janalkaad igala socotaana waa Sahra gluten free haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad janalkan aragto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe like iyo share intaba ii saarto haddii aad hore ila joogtay waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay inaad isoo booqato markasta like iyo share ii saar adigoo mahadsan maanta waxaan inoo wadaa herb ama dhir hadba saad u taqaano dhirtaas oo ah geedaha caleentooda oo loo isticmaalo in wax lagu carafsado cuntada lagu carafsado in loo isticmaalo dawo ahaan ama parfum ahaan marka dhirta aan maanta inoo wado waa caleen aad cuntadana ku darsan karto cabitaankana aad ka samaysan karto caafimaad aad iyo aad u fara badanna leh geedkan waxaa la yiraahdaa parsley caleentan waxay u eg tahay kabsar caleenta markaad marketka tagto markay isdhinac yaalaan way adag tahay inaad kala garato keebaa kee ah laakiin ii sheegay wuu ka yara caleen balbalaaran yahay markaad ursatana waad ku kala garanaysaa urka inaysan ahayn tani kabsar caleen marka waa geed aad iyo aad caafimaad badan u leh waxaan hadda samaystay hal koob waxyaalo kalaan ku darsaday si aan detox iskugu sameeyo aan uga saaro jirkayga waxa aan nadiifka ahayn oo dhan aan ka saaro cuntada iyo wixii hore iigu jiray oo calooshayda dhibaya oo kale ii nadiifiso waa nadiifin oo kaleeto baan u isticmaalay marka haddaa isku daydo subax kasta inaa hal koob ka samaysato maasha allah tabaarakallah waxa ka buuxa nutritious aad u badan vitamin A K C baa ka mid ah maasha allah tabaarakallah waxa uu u fiican yahay lafaha caafimaadkooda oo dhan marka lafa xanuunka aad buu ugu fiican yahay waxa kale oo ka buuxa waxa la yiraahdo antioxidantigu waxa uu jirka ka difaacaa waxyaalaha jirka dhibaateynaya unugyada jirka waxa dhibaateynaya buu aad uga difaacaa sida wadna xanuunka waxyaalaha cancerous cellska iyo diseaska wada waxaasoo dhan ayuu difaacaa marka geedkan waxa kale oo aad ugu fiican yahay inuu ka difaaco cudurkan kansarka waliba khaasatan waxay dhahaan kansarka naasaha ku dhaca oo kaleeto baa la ogaaday inuu aad u difaaco wuxuu la dagaalamaa waxa la dhaho inflammationka ama dhiigga infectionka ku jira oo kaleeto wuxuu aad ugu fiican yahay skinka jirka waxa yacni marka qofku uu xataa weynaado wrinkles uu yeesho wajigiisu aruuro aad buu ugu fiican yahay maasha allah lafaha aad buu u adkeeyaa waa u baahanahay marka qofku sii weynaado wuxuu la dagaalamaa cudurrada wadnaha oo kaleeto wuu la dagaalamaa wixii waa baabi'inaya laguma dhahayo laakiin wixii marka wax waxtar u leeyihiin maasha allah weeyaan waxa kale uu caawiya infectionka kaadi haysta oo kaleeto buu caawiyaa kaadi haysta haddii wax kaaga dhacaan aad buu ugu fiican yahay wuxuu u fiican yahay afka maasha allah calasho waxaan ku leeyahay afkaaga wuxuu ka soo baxaya neef fiican baa ka soo baxaysa ya wuxuu caawiyaa caloosha iyo mindhicirada marka qofku dibiro oo kaleeto geedkan calasho maasha allah tabaarakallah calasho aad buu ugu fiican yahay marka caloosha ku dibirto mindhicirada aad buu u fiican yahay wuxuu sidoo kaleeto wadna xanuunka indhaha aad buu ugu fiican yahay indhaha waa muhiim marka horena waa soo ogaanay vitamin A baa ku jira oo kaalin xoog leh ka qaadata marka waxyaalahaas haddii la isku soo dardaro waa wax la soo baaray oo la soo ogaaday marka inaan ka faa'iidaysano subax kasta koob qac isku siisid maasha allah tabaarakallah isku ogaada parsley magaciisa meeshuu ku qoran yahay insha allah bilkariim mar kale waxaan idinka codsanayaa fadlan videogan hadduu ku soo gaaro subscribe iyo like iyo share
intaba ii saar adigoo mahadsan waan idin jeclahay walaalahayo intaan videogan mid lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu